Aldor Medical University. waxaa loogu bishaaranayaa dadka jecel barashada aqoonta caafimaadka heerka jaamacadeed in sanadkan kuliyada lagu baranayo heerka labaad amba post graduate-ka oo khaas u ah culumta shaybaarka lagaga furay magaalada Hargeysa. takhasuso kala duwan ayaad ka helaysaa kuliyadaasi sida clinical hematology, clinical chemistry iyo sidoo kale medical microbiology and immunology. Professor aqoon dheer u leh culumta shaybaarka caalamkana aad looga yaqaan ayaa halkaasi diyaar kugu ah. macallimiintaasi waxaa ka mid ah Professor Helmi oo shahaadada MD 20 sano ka hor ka diyaariyay culumta clinical and chemical pathology waana dhinka kuliyada master programka. Professor Sam Abdul Muhsin waa professor isaguna shahaadada MD muddo 30 sano ka badan ka diyaariyay amba ka qaatay biochemistry-ga waxa uu hormuud ka soo noqday Al-Azhar University. Professor Maxamed Sayid Umar oo qaatay shahaadada MD sanadku markuu ahaa 2006 kana diyaariyay hematology isla markaasina ka shaqeeya imika jaamacadaha Kuwait. Professor Ahmed Rida oo qaatay shahaadada MD sanadku markuu ahaa 2012 kuna diyaariyay immunology kana howlgala jaamacadaha Turkiga. Professor Abdurrahman Zawi oo qaatay shahaadada MD kana diyaariyay microbiology kana howlgala wadanka Saudi Arabia. waa markii u horeysay ee kuliyad noocan lagaga furay Somaliland oo aad ku diyaarin karto master degree-ga clinical chemical pathology iyadoo uu kuliyadan ku aasaasay doctorkii weynaa ee Dr. Gabose. sida la wada ogyahay aqoonta cilmiga waa hantida ugu qaalisan ee Ilaahay ku manaysto bini'aadamka. marka isbitaalka Aldor riyadaydu waxay noqotay in jaamacadaha sare ee kuliyadaha kala duwan ee caafimaadka inaan bilowno. Istiwaangelintu waxay bilaabaysaa 1 bisha 9aad iyadoo socon doonta ilaa 18 bisha 9aad ee 2018. goobta ay jaamacadaasi Aldor Medical University ku taala waa dhakhtarka Gabose ee ka soo horjeedka Hotel Togder. wixii faahfaahintaasi dheerna kala xiriir telefoonada shaashada aad ka arkayso. Aldor Medical University.